aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa wasaaradda howlaha guud iyo guriyiinta iyo horumarinta dalka dhulka inay soo qaban qaabisay mashruucan ama barashadkan lagu diiwaan gelinayo hantida guud ee qaranka. waxaan dareemayaa wasaaraddu xaaladda ay ku shaqaysa oo dhaqaale ahaan aad iyo aad u kooban oo danta dalkeenu tidhi. waxaan aada u dareemayaa aqoon-yahanka intaa leeg ee injineerada ah in aanay haynin oo aanay dowladdu dhaqaalihii ku filan ay ku shaqayn lahaayeen inaanaan itaalkeeda haynin. waxaan uga mahadnaqayaa injineerada iyo aqoon-yahanada iyo shaqaalaha hoose ka shaqeeya wasaaradaha oo dhan xukuumadda iyo gaar ahaan tan howlaha guudaha howl badan haysa inay boqolkiiba boqol waxa ay ku shaqeynaya way voluntary ee aanay nin aqoon-yahana oo jaamiciya iyo standard dhaqaalo oo lagu xisaabtamo dowladda aanu jirin. wadannimada iyo tabarucnimada aad samaynaysaana waa idinka mahadnaqaynaa, waayo dee fikirkeenu waxa weeyi haddii innaga dhaqaale nagu yaraaday waa inanu dalka u dhisnaa carruurteena si u dhaqaale ugu hagaago. dal waloo hore u marayba dad buu la kulmay dalku markuu dhismaayey oo dhibtiisa qaatay, deetana waxaa u ahayay dadkii ka dambeeyey. dalalka maanta lama jeertaa ka mid a dee maraykankana xoogga weyn, ingiriisku muu ahaa mustacmalad yar sidii aanu mustacmaladu ahayn oo kale. deetana iyagoon waxba haynin oo cashuur yaroo shaqaha isku dilay ay dowladnimo qaateen, maantana halkaasay mareen. china ka mid a oo dad badan sooba gaari dee china oo aad loogu baktiyayo shalay ahayd 30 sano ka hor. dalal kale oo tusaalaha ka mid a ethoobiya agteena ka mid oo 20 sannadood ee iyagana EBRDB qabsatay, inaguna aynu xoroonay mar wada xoroonay. maanta dhaqaaladu kuwa afka ugu dheereeyay weeyi. qof lagu yaqaano markuu Ethiopia tago markii 20 sano ka hor soo halku dhaqaaladu marayay, guryahay galayeen, xafiisyada ku shaqaynayeen, dariiskooda. marka kalsoonida aad aaminta dalka inaad u shaqayso waa la qurxin karaa foolxumada maanta taagan iyo dhaqaale darrada. taa waa idinka mahadnaqayaa inaynu qaadano ra'yigaa aanu inagu dalka dhisno, ubadkeenu ha waa iska odhis. marka waa idinka mahadnaqayaa dhaqaalaha koobana ku shaqaynaysaan, wixii suurtagalana waa idinla garab gelayna. hawshaa qabanaysaan waa hantidii qaranka. qofka dhistanaya guri yar inta doonaya la kado 30 mitir 50 mitir 100 mitir mulkiyad buu u samaystaa. dee innaga waxaanu waajiba qaranku wuxuu leeyahay inaanu mulkiyad samayno. waa aragnimada waxayna tustay marar badan in loo haysto oo la yidhaahdo waxa dowladdu waa bilaash, waa wax dowladda cidi kama damqato ama lama ilaaliyo. waxaanu diiwaanka loogu horreeyey gaadiidka oo ilaa maanta sidii la doonayo soo xirayntiisii iyo raadintiisii aanay u dhammayn, laakiin waxaynu haynaa wixii gaadiid qarankani lahaa ilaa inta dalka dib loo soo galay tiradoodii. qacaadii halku dambeysay xitaa waa ogaag raymka kii xitaa qacaadi saalo kii meel yaalana waa la soo qaadaya waa la raadinaya, laakiin waxaynu haynaa qaranku imsu gaadiid ah. taasaa la xasiliyey. sidee loo maamulaya sidee loo wanaajinayana waa waddo kaloo loo socdo. waxaynu u baahannahay inaynu nala qaranku muxuu hanti leeyahy. horta qaranku dalka o dhan daysaa ka mas-uula, dastuurkaa taadhig dowladdaa dalka ka mas-uula. inay nidaamsaa u baahan tahay intee la beerayaa, intee la dhisayaa, intee la kaydinayaa. inaan hawshaa qaranka ee dhulka u gaadha wasaaradda loo abuuro oo dadkeena imika ku cusub dadku laba waxoon iswaafaqayn bay naga doonayaan. wax noo nidaami oo wax qurxi, waxna anigaaloo amarka qaadan maayo oo buurtaa anigaale inaan loo soo dhawaan oo kayntaa anigaaloo waan gubayaa. markaa tidhaa ka doonaya idhaa waa lay wararaya dowladdii baa ay dhibaysaa. waa laba aan islahayn moogta. wanaag lagu naga doonaya dalka in la wanaajiyo. qorshii loo dhigayana weli ma ogola. sabab dadka imika nool da-da uu yahayba waa traumatized. dadka ilaa 40 sano u dambeeyey Somaliland iyo Soomaaliya iyo geeska afka oran dagaalay iyo dowladda iyo waxbaa soo jeejiray. markaa dadku waa individual, waa qoyskiiba hoosta dabad geliyay, ma aaminsana wax la wada leeyahay. dadka waa intaa la baraa, dalka waa la wada leeyahay, sidana waa loo nidaaminaya. ra'yi kalaa jira, dowladdu way ku cadaadinaysaa iska ilaali. imika nin baa degan meel waxba kuma hayo, meel yarba beer yar ku leeyahay ama xoolo ku raacaa. waa la tegaya waxa leeyahay meesha waxaan doonayaan petrol ka qodo. sidaa la isku dhufanayo qori buu soo qaadanaya. maxaa laga rabaa meesheeda? war meeshan adna gaajaa kugu dishay, kii ka horeyna gaajaa ku dishay. inaan hore u marayno oo dhirtii hadday naga dhamaatay daaqi oo roobay waa inaanu gudaheeda qodnan wax ka soo harin doonaynaaye. adna ma qodi kartaa aanu isku tiraan wada qodno. dhibaato weyn baa ka taagan. waa maqashaa maalin kasta marka meel qaadaya ciidankeena
dadka hadda shaqaysanaysa adduunka ee dalka maal gelinaya dee xoolihiisa ku bixin maayo meel ciidan ku ilaalinayo oo maalba xabad loo soo baxayo ninkan kula dagaalamaya waxba iskama karanayo waa ka aqoon waa ka garasho ama nin kaloo meel fog jooga oo doonaya inuu si shaksiyan u faa'iido oo uu nin weyn u haysto ama uu dhegeysanayo ayaa le maya diid ilaa kaas wuxuu doonaya loo helo oo yana dee qalada marka waxaanu marnaa marxalad aada u adag oo dadkii dantoodii guud iyaga oo aan uga barheerayn aynaan isla fahmayn marka wax la qabanaya waxaan haysan wacyigelin badan iyo wax isu sheegid badan waana marxalad la mara cid walba way soo martaa marxaladda marka waxaan hawsha markaa gashaan dhibaatooyin badan baad ka hor imanaya oo xitaa aflagaada leh oo gacan qaad leh oo waxaydaan geyn leh oo buuq leh laakiin waxa weeye dulqaad iyo dadka inaynu wacyigelin badan waxaan doonayna waa kaa waa waxaa cad aynu hawshaa qaban wasaarado badan baa ayaad isla shaqayn doontaan wasaaradda ugu culus la shaqaynaysaa waxay noqonaysaa wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda arrimaha guduhu waa wasaaradda ugu ballaaran iyadaana haysa maamulka degmooyinka iyo gobollada gobolkii markaad ka baxdaanaad halka u tagtaa waxay u tegaysaan barasaabkii oo calanka u taagan dowladdu matala waxyaalaha marxalada marna iska hor imanaya waxaa kamid a barasaabkii calankaa u taagan haddana waxaad u gudbaysaa meeyar la doortay oo immunity leh oo sharcigu xeerkii saddexlaatanaad samaynay immunity buu leeyahay wuxuu leeyahay awood fulineed wuxuu leeyahay awood sharci dirsheed meeyarkina siday isula jaan qabsanayaan saddexaa jaran jaree kala duwan dowladdii dhexe golihii wasiiradu amarkii soo fulay barasaabkii u yimid haddana wuxuu yimid duqii magaalada iyo deegaankii oo la doortay intaasi inay si aan xanaf ahayn u wada shaqayso oo isla fahamtaa waxay u baahan tahay hogaamin iyo isfahm iyo usabir iyo waxsheeg dowladaha hooseenu dooranay decentralization dadka in bala la geeyo la daadajiyo adeegooda biyaha laydhka xashiishka laga guro nidaam magaalada bilicdooda la hagaajiyo waa waxaan u daadishanay dowladaha hoose inay qabtaan dowladaha hoose way dadaalaan laakiin mararka qaarkood awoodda tamartoodiiyo waxaa kala badan dee waxa laga doonaya expectationka waxa laga yaaba dhaqaalihii waxaa laga wada doonayey iskuuladii yarar iskuuladii hoose inuu bixiyo dhaqaalahoodii inuu leyrkii bixiyo inuu biyihii bixiyo inuu mskii caafimaadka bixiyo inuu waddooyinkii bixiyo inuu xashiishkii guro inuu boliiska waa kharash badan waxaa laga yaabaa meeshii uu maamulayana inaan taas aanay kasoo wada bixin oona awooddaaba lahayn oo xaqiiqa marka misaanadooda la eego deetna canaan baa ku imanaysa iyo dhaliil inaguna baryaha dee dadku waxay ku wanaagsan dhaliisha ayaa aad iyo aad loo yaqaanaa mogti hadduu qofka saa wax toostoosi waxoogay gulwada iyo nagadaa iyo waxaan jecelahay xagga kulaylka inaynu xagga shan wax wada shido marka waxay isu tegaysaan heerarkaasaa maraysa marka dowladii hoose waxay ahayd fursad fiican iyo siyaasad fiican inaynu maamulka daadishino waanay dadaaleen taagoodii laakiin waxaa ka xoog batay waxa laga doonayo hadday dhaliilo keenaanna waa bini aadmi iyo isu shardhiso dhaliil wuu yeelanaya laakiin waxa mashkilada waxaa la sheegaa dhaliishooda intay qabtaan cidma sheegto meel walbana waa caynkaa idinka waa isu tegi doontaan waxaa iman doonaa dood badan baad dhex mari doonta waayo isagu wuxuu qabaa inuu dee deegaankii wixii maamulo dantii guud wuu ogol yahay laakiin hore laysuma weydiin de maanta ugu horeysa markaas waa wax tiraa baadi kugu raagtay iyo daadaa la moodaa inaad leedahay haddii neef baadi geelaag soo galo oo saddex de-ood kuu dhalo oo kiilaha sumadii ku garto dood baa ka dhacda wasaaradda arrimaha gudaha waxaan ka filaya inaad si wacan arrintaa uga wada shaqayn doontaan oo iskaashile iyo kuwa kaleba aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa waa hawl bilowo wanaagsan hawsha loo diray wasaaraddani waa hawl cusub awlana waxayd gaadiidka iyo guriyeynta iyo jidadka laakiin iminka waxaan uga saaray wasaaradda horumarinta dhulka waa wixii ugu weynaa dowladdu qabanaysay ee dastuurku siiyey dhulka waxaa looga jeedaa qaranka oo dhan bad iyo beriba in la qorsheeyo dhulka imika in baynu isticmaalaynaa sidaynu u isticmaalaynaa intee daaqa intee kayda intaynu macdan ka qodnaa intaynu xashiishka ku basrinaa intaynu jeed ka dhiganaa waa in la helaa dhulkiisaynu isticmaalayna haddii kale dee dhulkii waynu baabiinayna
dowladaha baahan oo dhan dadka dhaqaalaha yar ina dalkooda way baabiyaan dhirta way gubaan meel walba qashin bay ku daadiyaan wasaqooga ku badiyaan faqrigaas kale marka inagu faqriga waxaanu ka hortagaynaa aqoontiina ku saxnaa haddii la yidhahdo aad iyo aad waxaan dirashanayaa guul iyo shaqo wanaagsan waa mahadsantii